nolosha adduunkan ee qaraarka iyo macaanka iskugu lifaaqani waxa ay ku qurux badan tahay dabaalashadeedu adiga iyo wehel kuu qalmo oo aad isheshaan. ha noqdo wehelkaas mid xagga uu doono ka soo jeedo sida xaas, say, saaxiib, walaal ama wax kale oo u dhigma. si aad u dhadhansato dheef wax ku ool ah marka ay kuu ahaato waa inaad heshaa ciddii ku dareensiin lahayd ee kula tamaashaadi lahayd, kulana qaybsan lahayd farxadda iyo wanaagga aad dareemayso ee nolosha ku soo kordhay. haddii aanay ciddaasi jirin oo ay farxaddu kugu keliyeysato, dhadhan iyo dheef kuu yeelan mayso, dareen iyo dabuubax midna kugu reebi mayso. dhinaca kale noloshu kama soo hadho in aad hesho wehel kula qaybsada dhiihaalka adduunka. sida aad u wanaagsantahay ayuunbay dhib adduun hab kuugu soo dhahaysaa, ileen waa adduun, waa harka labadiisii gelin. marka ay taasi timaado waxa aad u baahan tahay mid kugu garab istaaga hil iyo hoob, ku dejiya oo dhibta kula qaybsada, kuu hagarbaxa oo kuu hura naftiisa. haddaba inaad hesho qofkaaga mid kula mid ah oo marxalad walba heerka aad marayso kula taagnaado aadna aad u taagnaato ma sahlan helidiisu. waxa ay u baahan tahay baaritaan badan iyo aqoon dheer. si ay haddaba kugu fududaato helitaanka qofkaaga waxa aad marka hore isweydiisaa qofka aad rabta tilmaamo noocee ah ayuu leeyahay oo aad dadka kaga soocanaysaa. si taasi kugu fududaato waxa aad raacdaa oo ku xulataa qofkaaga tilmaamahan oo ah kuwa ugu wanaagsan ee qof lagu xusho. ugu horeyn baro naftaada adiga. naftaada oo aad barato waxa ay nacab tahay iyo waxa ay jeceshahay, waxa ay ku wanaagsan tahay iyo waxa ay ku liidato. waxa ay kuu sahlaysaa in aad doorato oo aad hesho qof aad isfahantaan oo kula dabeecad iyo dhaqan ah, iskuna aragti tihiin. qof alla ka cabsi leh. raaso qof alla ku xiran si aad u liibaanto noloshaada adduun iyo midda aakhiraba. qofka hadduu yahay mid alla ku xiran mar walba waxaad ka faa'iidaysaa in aad adna ilaahay xasuusato oo aad ku xirnaato howlahaaga oo dhammina sida aad jeceshahay kugu wada ahaadaan. haddii aad qof ilaahay dartii u saaxiibtaan oo aad u walaalowdaan waxa aad mudantihiin in aad aakhirino kuwa harka eebbe hoosgala noqotaan. sida uu rasuulkeeni inoo sheegay, nabadgelyo iyo naxariis korkiisii allaha yeele. waxa uu yidhi 7 qof ee maalinta aakhiro hooska alle hoosgalayo waxaa ka mid ah 2 qof oo alle dartii isku jecel. hadday kulmaan ilaahay dartii ayay u kulmaan, hadday kala tagaana ilaahay dartii ayay u kala tagaan. aqoon. dooro qof aqoon leh si aad ugu dayato waxna aad uga barato. in aad xulato qof aqoon leh waxa ay ka dhigan tahay inaad heshay qayb weyn oo noloshaada ka mid ah. qofka aqoonta leh waa inuu yahay mid ka faa'iidaystay oo naftiisa iyo tan dadka kaleba wax ku tari kara. kalgacayl. qof kalgacal leh oo dadka jecel, soo dhoweyn wanaagsan oo weji furan, farxaduna ay dushiisu ka muuqato. dabeecaddu waa tan ugu muhiimsan ee labada qof isku xirta, xiriirkooduna inuu sii jira suuragelisa. qofka dabeecadda wanaagsan oo aad hesho, wehel, saaxiib iyo walaalna aad ka dhigato waxa ay ku dhaxal siinaysaa in aad isfahamtaan oo aydan ibidkiina wadaagto wax wada leh ahaataan. xanaaqa iyo xurgufta dhexdiina timaatana waxa ay noqonaysaa mid fudud oo aydan u fiirsan ama aadan gadaal ugu raacin. han iyo himilo. qofka aad doonayso ee aad rabto in aad wadaagtaan nolosha dhib iyo dheefba waxaa wanaagsan in aad ogaato inta uu hadaf iyo horumar leeyahay. haddii uu yahay qof leh han sare oo hiigsigiisu uu fog yahay waa nasiib iyo ayaan alle kula kulansiiyey. isku aragti. ka hor inta aadan la samayn xiriir saaxiibtinimo ama wehelnimo waa inaad ogaataa fikirka uu aaminsan yahay iyo aragtida uu qabo. waa in uu ahaadaa mid kula aragti ah. haddii ay aragtidiisu tahay mid ka fog xaqiiqdii ama aydan isla jaan qaadi karayn waxaa adkaanaysa wadaagista noloshiina. qalbi wanaagu waa tilmaam ka mid ah tilmaamaha ugu haldoorsan ee lagu doorto qof kasta oo xiriir idin dhex marayo. siiba waxa uu aad ugu muhiimsan yahay saaxiibka aad rabto in aad nolol wada qaybsataan. qofka aad dooranayso waa in uu noqdaa qof qalbi ballaaran oo qalbi nadiif leh, kana fog xaasidnimo iyo xiqdi uu kuu qaado. qofka qalbiga wanaagsan ee aad doonaysa waa qof jecel horumarkaaga, ku farxayana farxadahaaga, ka murugoonaya dhibkaaga iyo dhaawacyada kala gedisan ee ku soo gaaraya. waa qof ay daacad ka tahay xiriirka saaxiibtinimo ee aad wadaagaysaan. nafhure. ku xulo qofka aad doonayso in uu noqdo saaxiibkaaga nolosha. tilmaantan waa in aad ogaataa kaalinta uu kuu buuxin karo haddii xaal adduun oo dhib iyo dhaawacba leh iyo farxadda nolosha oo baraadhe iyo barwaaqe daadahiisa ku soo galaanba. howlkar.
qof howlkar ah oo waxqabad iyo dadaal leh waxa uu kaa caawin karaa in aad arrimo badan iska kaashataan, howlo badan oo aad u baahatay qabashadoodana uu kuu qabto. waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sidee lagu heli karaa qofkaas, ama suuragal ma tahay in aad qofkaas oo kale heshaa. waxa aad xaqiiqsataa dunida wax wada xun inaysan jirin. midka kale, naftaada waxa aad u sheegtaa oo aad ka dhaadhicisaa haddii 99% dadku ay yihiin kuwo wada xun, midka soo haray ee 100 waa kan wanaagsan. haddaba adigu niyadaada gasho una dadaal in aad midkaa hesho. sida aad ku heli kartaana waa adiga ugu horeyn noqda qof wanaagsan oo jecel wanaagga iyo waxtarka. daacadna waa inaad u noqotaa saaxiibka aad rabto inaad yeelato. waad helaysaa qofka aad rabto insha Allah haddii aad daacadnimo ku dadaasho oo aad noqoto qof ka run sheegaya xiriirka saaxiibtinimo, waayo daacadnimadu ma hungowdo. haddii aad ka hesheen muuqaalkan, fadlan la wadaag asxaabtada adigoo u sii sheergareynaya. haddii aad nagu cusubtahay si aysan ku dhaafin muuqaaladeena xiga, waxaan kaa codsanaynaa channelkeena like, subscribe, share intaba aad inoo dhahdo.